waxaa dagaal kharaar oo loogu sii jeedo xagga gooja cadde oo loo fursaday ma garatay ilaa 4 meelood intays baa ilaa saaki dagaalka sida laga kiciyay ilaa 4 gaari waa laga gubay sidoo kale waxaa jira niman badan oo laga laayay oo gaari lagu gubay ma garatay waa gartay hadeerna gooja cadde ciidamada u sii fursaday xoogoodu ciidamada isku dhafan oo fara badan marka ilaa gabalgaag waxaa la rajaynayaa in guul weyn dagaalka insha Allah taaka doomay ay jamaahiirta SSC ay insha Allah ka gaari doonaan hadii aan leeyahay marka hadda xabadu waa dhacaysaa inkastoo hadda ay xoogaa sidoo hore ay ka yartahay saacadana kula hadlay laakiin marba marka dambaysa way bilaabmataa oo taasika cusub baa loo degaa meelo kala duwan baa laga ugaarsadaa goobo cusub baa laga kiciyaa goobo cusub baa laga qabsadaa dhabarjebin baa lagu sameeyaa marka aad baa loola xarbinayaa nimanka insha Allah halkaynu joognaa waa halkee gooja cadde ma haysanaa waka kaasaa kaga adeeg marka fantaasigow adigu waxa ku sugan tahay magaalada Laascaano waliba furimaha dagaal ka socda ayaa ka soo muuqanaysay hadii aad dadka u sawirtid sida wax u socdaan bal intee aag dagaalku hadda ka socda aag uu ka socda horta laba aag baa ugu muhiimsan oo aad uga socda waa dhanka galbeedka oo gooja cadde ku sii foorarta iyo dhanka qorax ka soo baxa oo xagga laamiga oo maraaga ay dadku dabada yaqaaneen laakiin labada dhinac dagaal xoog leh oo midba midka kale ka soo celisay baa ka socda walaal xagga gooja cadde oo xigta dhanka waqooyiga ay dagaal ku badan yahay xoogiisu ka dhacayo marka yaa weerarka yaa iska lahaa ciidamada Soomaaliland ayaa lahaa mise ciidamada SSC yaa gacanta ku horeeyay ayaga gacanta ku horeeyay oo dhowr hoobiye markii soo tuureen oo dabcan loo dul qaadan waayay baa loo jawaabay kadib markii la soo jawaabana kadibna baashu dee waa laga cibaadaystay si fiican baa nimanka loo gumaaday waa laga laayay maxaabiis xataa waa laga hayaa insha Allah sida ay sheegeen madaxda ciidamadu inay soo bandhigi doonaan mar dhow gawaari badan ilaa 4 gaari indhaha galaana saaray oo laga gubay طبعا ciidamada waa saarnaa baabuurtaas baabuur ma ahayn baabuur la saaray yahay hadda xabadu waa socotaa waxa jirta furimo la kala qabsaday ama saldhigyo ciidamadu la kala wareegeen aad ayaga waxa laga wareegay ilaa 4 ay ka dagaalamayeen 4 furimood ay ka dagaalamayeen baa laga kiciyay hadda waxa ku haray gooja cadde ay ku sugan yihiin iyo god yar oo ka sokeeya oo ay ku dhuumaysanayaan marka godkaas ilaa galabta insha Allah inaan kala wareegno baarjeena aad baa u maasanta saaxiibka waxa kaloo jirta in la arkay baabuur social media la soo dhigayo leeyahay waa la qabsaday arrinta maxaa ka xaqiijin kartaa xagga galbeedka ka dhacay baa filaya baabuurtaas la qabsaday oo xagga qorax ka soo baxaan bariga insha Allah dhankee aad ku sugan tahay marka anu galbeedka ku suganahay baabuur la qabsaday oo gal ma arkin laakiin baabuur laga gooy kaliya arkayaan xagga kale laakiin laga qabsaday oo xagga aan wacay dhalinyaraha wax xagga kale oo ciidamada SSC waxa sheegtay in ciidamada Soomaaliland khasaare loo geystay maxaad aragtay oo dhanka kale ma inta kale xag dagaalamayo ma aha cid kale oo midaad soo gaadho SSC maana arkina inta ku dhigay